وكا دستوركي شرعي dalkeeni durbata baqaade wasiir maayir ku xigeen iyo xogaye ku soo dhawaada degmada Axmed Dhagax waxa weeyaan degmada Axmed Dhagax waxay ka mid tahay degmooyinka uu tababarku ugu socdo waxa weeyaan barashada dastuurka iyo waxa weeyaan dastuurka qaranka Somaliland وكا دستوركي شرعي dalkeeni durbata baqaade aan degmada ku soo dhaweynaya wasiirka Wasaaradda Xidhiidhka Goleyaasha iyo Arrimaha Dastuurka maayir ku xigeenka sidoo kale waxaan aad iyo aad u salaamayaa bulshooyinka haweenka ay halkan ka soo qayb galay barashada dastuurka muddo halkan uga socday runtii ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay tababarkan idii soconaya muddada waxa weeye inaad barato xaqa waddanku uu kugu leeyahay adiguna xaq aad leedahay oo aan runtii ahayn wax aan hawl yarayn oo inaad fahamto daristo barato subax walba ku soo toostad ku seexato dastuurkaagu wuxuu ku farayaa badalkaagu xaq ugu leeyahay xuquuq وكا دستوركي شرعي dalkeeni durbata baqaade waxaan kormeer ka ahayn seminaarkii 8 degmo ee caasimadda ay u furtay wasaaradda dastuurka qaranku kaasoo daba socda seminaaro bariyahanba wasaaraddu ay dadka ku barisay oo gobolada dhan marayso gobolka Maroodijeexna ka mid yahay caasimadan Hargeysina ay ka mid tahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sidaan horeba ugu mahadnaqnay wasiirka oo muddadii yaraydu joogay aad iyo aad maamul daataji ku sameeyay dastuurkii وكا دستوركي شرعي dalkeeni durbata baqaade in halkan waxaan ahaa macallinkii ka jeedinayay ama tababarka ka bixinayay barnaamijka barashada dastuurka qaranka iyo waddaniyada oo isku dheehan waayo laba shay oo kala maarmeyn in waxaan la kulmay dad hufan magac iyo maamuus leh na soo dhaweeyay وكا دستوركي شرعي dalkeeni durbata baqaade uu xambaarsan yahay dastuurkeena iyo waddaniyadu qaran kastaaba waxa uu ku hormaray ku dhaqanka shuruucdiisa wixii isaga ka reeban inuu dalkiisa ka ilaaliyo inuu barto oo ogaado iyadaan askarina u iman maxkamadina u iman inuu isagu ismaxkamadeeyo sharciyeeyo qaran kastaaba waxa uu ku hormaray ku dhaqanka shuruucdiisa wixii isaga ka reeban inuu dalkiisa ka ilaaliyo inuu barto oo ogaado iyadaan askarina u iman maxkamadina u iman inuu isagu ismaxkamadeeyo sharciyeeyo wuxuu xaq u leeyahayna inuu barto aqoon u yeesho isagoo aan suldaan iyo caaqil toona ka haynin inuu maxaan idhaahay garanayo wadada waxa uu leeyahay uu mari karo idinkoo waliba ah dadka ugu badan ee wax doorta oo kala dooranaya waxa ku dooranaysaan halkana ka ogaanaysaan 130 qodob halkani 130 qodob qof walba wax taabanaya ayaa sharcigan loo sameeyay وكا دستوركي شرعي dalkeeni durbata baqaade